السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وولاشي نعيمة تحليل أو ربطه إن أي كرباشته حمدك القعل waxaad ugu cafisaa inantan habaryarta u ahayn. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وولاشي نعيمة تحليل أو ربطه إن أي كرباشته حمدك القعل هبريرتي معان هبرير آدي آد أيان كاغا مهد علينايا مادام أقروست قلت كاغي أو أكسو نقطي مقدمي وإلهي ما شاء الله aad ayaan ugu faraxsanahay maadaama aad ogaatay in aad qalad ku socotid oo aad raaligelisay walaasha Lucky aad ayaan ugu mahadsan tahay ayadoon weliba lagugu qasbin inaad raadisay nambarkeedii aad telefoon ahaan ku raaligelisay xalayna aad usoo fadhiisatay YouTube-kii aad shalay ka caynaysay oo aad ka raaligelisay maasha Allah aad ayaan ugu faraxsanahay midaas waxaan rabaa oo kale in aan ka hadlo anagoo dhan horta hore gabdhaan wada nahay qof walbana gabdho inuu dhalayaa laga yaabaa amaba la dhasheen ama uu habaryar u yahay ama maxaa dhihi jiray eedo u yahay kulligeen gabdhana lagama weynaayo iska ilaali ilmo yar oo waxba kaa galabsanin in aad farto ku fiiqdid hooyo kale aad maxaa dhihi jiray shaah ku cabtid ama hooyo kale ilmaheeda inaad wax kale ka samaysid aniga waxaan aad uga gubanayaa waa ilmaha yaryarka ah qofkii ilmo yaryar dhibaateeyo aad ayaan u necbahay ma jecli especially qof adiga aan waxba kugu samaynin in aad haddana asaga intaad gaaday aadan ilmihiis u gudubtid waa wax aad u xun waxaan la hadlayaa gabdhaha oo gabdhaha walaalahood ah jecel dhibaatadooda ayaan la hadlayaa aniga xamdi oo kaliya lama hadlaayo waxaan rabaa inay la fiirsataan raaligelintii xalay ilaahu waad aragtaa adoontaadii baan ahay icafi ilaahu cafis baan ku weydiistay walaashay maxaa la dhahaayay laki xaaji cafis baan weydiistay laki cafisku waa wax wanaagsan walaalay waa telefoonku waa iga cafisay laakiin miidiyaana waan kuu soo marinayaa khalad baan kaa galay inantaadan khalad ka galay familkaagan khalad ka galay gabadh Soomaaliyeed baa tahay 19kii qofkii ku kaadirayay baa haddana fiidiyowga ii keenay walaalay macaanay haddaad u baahatin haduu dib u ka soo sheegi karaya magacyadooda haday ku qaado haday ku qacdo nagadaa habrir nagadaa maxay taa waxaan iska kacay hal mar misfiility waxba qabta nagadaa degeedan kacaysa haddaan badab daminaynay oo dhibaato marabnaan ku dhaxnay oo dagaal marabnaan ku dhaxnay insha Allah meeshan dagaalkan ha ku dhamaado iyo buuqan iyo problemkan wax dambe habray ha ka soo hadlin insha Allah maxaa dhihi jiray qofkii dhibaato qof u geystayna ilaahay maxaa dhihi jiray ha u noqdo walaalkiisna cafis ha weydiisto aniga taas ayaan aaminsanahay waxaan balaayadan soo kacaysa naga dhaftay habreeray balaayada iska kacaysa u joogtid hal mar baa laba fiil iska taabanaysa adoo iska sheega arkaysa horta hore xamdi hal mid ayaan kaaga mahad celinayaa qof qalbi fiican ayaa tahay ummadda Soomaaliyeed way og tahay laakiin hal dhib kaliya qabta cudur loo dhaho fudeed fakata wixii waa ka fakanayaan cudurkaas qabta cudurkaas xoogayna iska yareysid waa insha Allah video intiisa kalena ayadoo sii raaligelinayso weli raaligelinta ku sii socoto walaasheed Lucky daawasho waan la igu raadiyay marka Lucky walaalo waa mahadsan tahay cafis iyo masaamax baan ku leeyahay gabadh Soomaaliyeed baa tahay khalad baan ka galay khaladkii aan ka galay iga cafi ilaa 19kii ilaa hadda aan ku jiro 21ka aniga ku dulmayay dulmigaana aniga qaatay walaalay cafi insha Allah ilaahay idankiisa ma khaldamay waa ilaahay waxaad ugu cafisaa ilaahay dartiisa iyo taageerayaashaada oo ma garanaysaa dadaalay inay aniga runta ii sheegaan runta iyo xaqiiqadana ii keenaan waxaad ugu cafisaa inantan habaryarta u ahayn adeertii ruma dhashay maxaa la dhahaayay ku soo hiilisay masha Allah inta faraha ka xitaa kan dadka wata faraheedi ma faraheedi baa way tiri ciimo tahliil rabana adeertii ruma dhashay marka waxaas oo dhan igu cafi marka aad baan ku inii salaamaya walaalaha Soomaaliyeed meel kasta joogtaan anigu maanta laga bilaabo waxaan ahay hooyo u dooda xuquuqda hooyooyinka Soomaaliyeed ilaahayna ha iga cafiyo labada hablo ma sha Allah horta si fiican u hadashay waxayna go'aansatay inay waxaan ka baxdo dagaalkan iyo buuqan iyo ciidan aynu u doodi doonto xuquuqda maxaa dhihi jiray hooyooyinka Soomaaliyeed insha Allah waxa u rajaynaynaa sidaas inay ku sii jirto walaalahayga Soomaaliyeed inta ay ka qaldoonto gabadhaas oo ku qaldoontay
oo ay gardarro cad ku maagtay amaba maxaa la dhihi jira gar waxay noqotaba ayadana cafis bay idin weydiisatay anigana waxaa idin weydiinaya inaad iska cafisaan insha allah wixii dhibaato iyo buuq iyo dagaal social media naga soo dhex maray walaalayaal oo gabdhahayga Soomaaliyeed ha la is cafiyo ha la iska dhaafo dhibaatada maanta oo dhan haddii la is caayo waxba ma tarayso waxaan reebaynaa oo keliya xumaata reebaynaa wax wanaagsan ma reebeyno so insha allah waxaa ku tashataan xumaatada inaad ka tagtaan oo wanaag aad reebtaan kulley adduunyadan qof walba intuu joogayo waa wax yar inta aad joogtid wax wanaagsan ka tag taas ayaan aaminsanahay walaashii Lucky naga raali noqo famil ahaan habaryartii waa kugu qaldoontay wayna ku raali gelisay gabdhaha kale Soomaaliyeed ay ku qaldoontana waxaan leeyahay raali noqda cafisi masaabax kulligiin ha la is cafiyo walaalayaal buuqa social media naga dhaafa khayr ayaa idinkaga tegay